qaar ka mid ah bulshooyinka ku dhaqan bariga degmada Danood ee gobolka Doolo gaar ahaan santarada Qararo iyo Xirsimaca iyo qabalooyinka hoos yimaada ayaa si weyn uga soo horjeestay musharaxnimada Faysal Rashid dowladdeegaanka Mustafa Maxamed Umar iyo xusbiga barwaaqo waxaanu cadeynaa sheegaynaa daanu nahay bariga Danood daanu nahay deegaan waliba isaga xaq u leeyahay wixii anfaca isaga yaqaan qof aanu dhalanna ma anfaco mana ogola qaadana maayaan nalaguma khasbi karo sidaas baanu hadii alla idmo u sheegaynaa dawladda waxaan leeyahay waxyaabaha aanu maqlayno ama dhagahayagu soo gaadhayo waxna raali geliyay ama na qanciya ma aha waxaan deegaanka bariga Danood iyo dawladaba ka codsanaynaa oo ku hadlaynaa nimaanaan doonayaan waxa halkan jooga santarka Qararo bariga Danood waxay ka hadlayaan shucuurtooda inay muujiyaan inay masiirkooda ka hadlaan qof madaxweynaha Mustafa Maxamed Umarna waa taageersan yihiin dowladdeegaankana waa taageersan yihiin xusbiga barwaaqana waa dooranayaan waa taageersan yihiin qofka ka soo baxaya waxay ka codsanayaan madaxweynaha iyo xusbiga barwaaqo qof dhakada lagaga keenay oo aan bariga Danood u dhalan oo santarkan u dhalan iyo santarada aaga kule bariga Danood ku yaala inaan lagu qasbin oo la caburin oo masiirkooda cid aan ka shaqeynaynin ee shaqo garanaynin lagu qasbin oo aan la caburin bay codsanayna saasaan madaxweynaha iyo xusbiga ka codsanayna waxaan ku sheegaynaa mandate-ka waxaanu siinaynaa qofkii bariga Danood u dhashay qofkanu shaqadiisa naqaano qofkanu la soo shaqeynay laakiin mid dhakadan lagaga keenay lama shaqeynano lamana shaqeyn doono waxaan ka codsanaynaa xusbiga madaxweynaha ugu horeeyo golihiisa xusbiga warwaaqo ku jira inaan dadka la qasbin shucuurtooda loo tixgeliyo iyo masiirkooda intaasaan ku codsanaynaa waxaa kaloo jira awalba xuquuqdayadu aasnay dadkani biyo male caafimaad male waxbarasho male waxqabad dawladda amale ay timadii arrimaha bulshada oo dhan way ka xiran yihiin in adeega loo furo bariga Danood oo xuquuqdooda kor loo qaado aasan intaana dawladda ka codsanaa assalaamu calaykum waraxmatullahi alxamdulillahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ogolaha salaamada dadka sharafta leh suuqyada shirkan oo ay kaga hadlayaan shucuurtooda iyo maaragtay inay ka hadlaan shayga qofka bini'aadanka ilaahay abuurtay waxaa loo sameeyay yahay inuu xorriyad helo in maaragtay xorriyadda qowlku uu maaragtay tixgelin leeyahay waxaa laga cadan jiray dowladihii hore Itoobiya sida Itoobiya laftii xisbiyada la soo shaqeynayay caburin baa laga cabanayay waxaa loo baahan dadka shacabka ah ee bariga Danood dega oo sagaashan iyo shan dulmaraayeen waxay ka dulmaraayeen dowladii hore ee TPLF iyo xisbiyada la shaqeyn jiray waxaa la doonayay inay maanta shucuurtooda iyo maaragtay xisbiyada wax ku doortaan rabitaankooda loona tixgeliyo marka annagoona mucaarafsanayn xisbiga BB waan mucaarafsanayn xisbiga dowladdeegaanka ka jira maanta iyo xisbiga imika barwaaqo ee federaaliga ka taganaya midna uu hogaaminayo ra'iisul wasaaruhu waxaanu codsanaynaa shacabka rabitaankooda in loo tixgeliyo iyo rabitaankooda iyo shucuurtooda loo tixgeliyo annagoona mucaarafsanayn oo mucaaradad ku hadlaynin waxaanu doonaynaa in loo tixgeliyo rabitaanka iyaga shacabnimo annagoo ah bulshada santarka Qararo waxaanu dooranaynaa qof deegaanka u dhashay deegaanka ku dhashay shahaadadiisii aqoon deegaanka ku qaatay dadka deegaanka aad u hooyaa u yihiin ma doonaynaa inaanu dalka iyaga dadka waan doonaynaa nin dalka u dhashayna waan doonaynaa kaas waa u dhashay laakiin deegaan dadku majority iyo minority weeyaan majority nimanka wadanka u dhashay aan anagu la soo baxno waan doonaynaa in anaga wadanka iyaga maamula hadaanu nahay ciid wadanka ciid hawd hadaanu nahay anagu waxaan doonaynaa ku dalka iyaga u dhashay wax noo qabtay ma jiraan ninka wuxuu qabanayaa dalka ee u dhashay ee deegaanka iyaga kamid annaga oo degmad qabaliga Fardalaaye waxaanu u baahannahay in wax noo qabanaya oo noo dhashay oo dalka u dhashay oo deegaanka iyaga kamid ah annaga ku hadlayna ururka hooyooyinka iyo hadduu baahida kislay baryadayada toona aan ka warqabin dhakada in laga keeno haddaanu nahay qabalaha iyo santarada toona diyaar
annagu reer ciideed kayagaan rabnaa in wax loo qabtay Itoobiya u dhashay dadkaasaan خالد عبد الرزاق Ariel TV